عليكم kulanti waxaan oo wanaagsan dadweynaha sharafta leh daafaha adduunka ka daawani doona barnaamijkan aan maanta kusoo bandhigayo iyadoo ay maanta ay tahay maalintii doorashada dalka jamhuuriyadda Jabuuti iyaan run ahaantii inaan ka faaloodo aan rabaa natiijada waan sugaynaa cidii kusoo bixi doonta doorashada dalka jamhuuriyadda Jabuuti kama hor dhacayo arrintaasi balse dadka reer Jabuuti way ka dharagsan yihiin qaabka xisbiyada Jabuuti ay u dhisan yihiin habase ahaatee qaabka maaragtay isbahaysigu u dhisan yahay iminka intan akhtarkii waxa weeyaan waa shan urur oo waaweyn oo isbahaysiya xaggan waa saddex urur oo waaweyna oo isbahaysiya xagganna waa saddex kaloo urura oo independent oo run ahaantii iyagu isbahaysi maahine waxay ka go-een isbahaysigan bay ka baxeen markaasi waxaan rabaa walaalayaal inaad dadka reer Jabuuti badidoodu way ka dharagsan yihiin oo macno maaragtay way ogsoon yihiin habase ahaatee dadka reer Soomaaliya iyo dadka Soomaalidu gaar ahaanba meel ka shay doonaan adduunyada haddii joogaan waxay yaqaaniin xisbiga RPP amba RPP sida reer Jabuuti u yaqaaniin habase ahaatee doorashada maanta dhacaysa ee dalka jamhuuriyadda Jabuuti ee bisha maanta 9 ay tahay maalin Jimcaha 2021 waxa weeyaan walaalayaal waxa loo vooteenayo maaha Ismaaciil Cumar keligi ma waxa loo vooteenayo amba loo codeynayo Ismaaciil Cumar keligi ma waxa weeyaan waa shanta xisbi oo gaashaanbuur samaysatay waxa weeyaan xisbiga RPP xisbiga maaragtay fruit xisbiga PSD xisbiga PND iyo xisbiga UPR xisbiyadaasi waxay ku midoobeen waxay ku midaysan yihiin gaashaanbuurta amba isbahaysiga aqlabiyadda madaxtooyada waxaa la yiraahdaa Union for the Presidential Majority Coalition markaas waxa weeyaan isbahaysiga aqlabiyadda madaxtooyada marka maanta vote-ka dhacaya badankoodu waxa loo vooteenayaa waxa weeyaan waa shanta xisbi oo iyagu ka soo sharaxay soo doortay Ismaaciil Cumar Geele soo doortay markaasi shanta xisbi waxay haystaan maaragtay hijadaha way ku kala badan yihiin xisbigan wuxuu awood ku leeyahay waqooyiga dalka jamhuuriyadda Jabuuti iyo awood ku leeyahay xisbigani caasimadda iyo dhammaan gobollada oo dhan waa xisbiga 40 sanadood in ka badan jiray markaasi wuxuu iska leeyahay dad aad u tiro badan buu iska leeyahay oo run ahaantii oo caasimadda ka kooban oo hijadaha ka kooban oo gobollada ka kooban waa xisbi maaragtay ugu da'weyn xisbiyada dalka jamhuuriyadda Jabuuti RPP baa la yiraahdaa amba RPP sida reer Jabuuti ay u yaqaaniin markaasi xisbigaasi waa xisbiga ugu da'weyn xisbigan kale fruit la yiraahdo waxa weeyaan waa xisbi kale oo isagu 1990kii abuurmay waxa weeyaan isaguna aqlabiyad badan buu haystaa oo shicib badan buu leeyahay oo way gaashaanbuuraysteen xisbigani PSD isagu aqlabiyad sidaa u sii weyn shicib sidaa u sii badan male habase ahaatee waxa uu ku tiirsan yahay labadan xisbi baa aad u waaweyn oo run ahaantii marka laga hadlayo coalitionkan greenka qoladan greenka ee maaragtay akhtarka labadan xisbi baa aad u waaweyn oo maaragtay shacbiyad aad u fara badan haysto haddii dalka jamhuuriyadda Jabuuti gobolka doontida joog magaalada doontida joog labadan xisbi waxay ku yihiin maaragtay waa laba xisbiyo maaragtay haddii ay iska soo horjeedi lahaayeen waxaa dhici lahayd balance baa dhici lahaa laakiin maadaama ay labadoodii midoobeen ay ku midoobeen maaragtay Union for the Presidential Majority Coalition gaashaanbuurta amba maaragtay aqlabiyadda madaxtooyada waxa weeyin maaragtay shicib badan bay haystaan waxa kale oo jira
xisbiyada kaloo iyakuna gaashaanbuur samaystay 3 xisbi oo isku tagtay oo la yidhaha xisbiga UDG xisbiga waa UDJ oo run ahaantii luqadda ingiriiska UDJ baa lagu yidhaahdaa xisbigan kalena waxaa la yidhaahdaa ARD baa la yidhaahdaa xisbigan kalena CDU baa la yidhaahdaa xisbiyadaasi waxa weeyaan aqlabiyad xisbigani UDG aqlabiyad xoog leh buu haystaa gaar ahaana gobolka Carta iyo gobolka Cali Sabiix iyo magaalo madaxda ayuu ku haystaa aqlabiyad aad u weyn balse labadan xisbi ee kale ayaa iyakuna daciifa oo run ahaantii iska adiga arkay xaggan waxaa ku qoran UDJ baa ku qoran waa recognize official party laakiin xaggan official labadan xisbiga kale official party maaha waayo xisbigani baarlamaanka Jabuuti ayuu member ka yahay oo maaragtay golaha baarlamaanka Jabuuti ayuu maaragtay ku leeyahay aqlabiyad oo kuraasi buu ku leeyahay laakiin labadan xisbiga kale baarlamaanka Jabuuti kuraasi kuma leh markaasi official party maaha laakiinse waa recognized party waa xisbi la aqoonsan yahay laakiin xisbi golaha baarlamaanka fadhiya oo kuraasi kule maaha markaasi labadan xisbi waxay ku tiirsan yihiin xisbigan bay ku tiirsan yihiin oo xisbi isagoo aqlabiyad weyn haysta oo maaragtay gabar la yiraahdo Ilaaya Ismaaciil Geedi Xareed la yiraahdo iyaa hogaamisa isla markaasina saddexdan xisbi isku tagayna xisbigan baa hogaamiya oo maaragtay u ah maaragtay madax shantan xisbi isku tagayna xisbigan baa ugu dad badan oo xisbigan bay soo doorteen Ismaaciil Cumar Geelle iyaa hogaamiya waxa kaloo jira xisbiyada kaloo iyakuna maaragtay ka go'ay xisbigan maaragtay USN la yiraahdo ragani saddexdan xisbi waxa ay ku aqlabiyadooda waxa la yiraahdaa amba gaashaanbuurtooda waxa la yiraahdaa UNS the UNS waxa weeye Union National Salvation Coalition waxa weeyaan amba Djibouti u yaqaana USN bay u yaqaaniin markaasi markii hore 6 xisbi oo kale bay ahaayeen oo bay ka badnaayeenba xisbiyadan kale laakiinse waxaa ka baxay xisbiga MRD baa ka baxay xisbiga RAD baa ka baxay xisbiga Model baa ka baxay xisbiyadani dowladdu aqoonsiga way ka qaaday xisbiga MRD waxa weeyaan nin waxaa hogaamiya Daahir Axmed Faarax la yiraahdo waa xisbi shacbiyadiisu aad iyo aad u fara badan tahay oo marmarka qaarkood aad la isaga ilaaliyo oo run ahaantii haddii uu haysan lahaa aqoonsi because aqoonsigii waa laga qaaday waa unrecognized party markaasi aqoonsigii waa haddii uu aqoonsiga lahaan lahaa khatar gelin lahaa xisbiyadan oo kale marka xisbigani waa xisbi keligiis ka taagan wuxuu jiraa ilaa 28 sanadood buu jiraa shacbiyad aad u ballaaranna wuu leeyahay maaragtay 2008 ayaa laga qaaday aqoonsiga xisbinimo ilaa imikana weli looma soo celin waxa uu markaa doorasho kama soo qayb gali karaayo xisbigan kale RAD marka xisbigan aan ku soo noqdo MRD uu Daahir Axmed Faarax uu hogaamiyo shacbiyad aad u ballaaran waa uu leeyahay oo dibadda iyo gudahaba joogta laakiinse waxa deer weyn baa jira meesha deerkaasi waxa weeyeen aqoonsigii baa lagala laabmay marka aqoonsiga lagala laabmo xisbigu isma soo sharaxi karayo doorasho kastoo timaada xisbiga RAD la yiraahdo waa xisbi maaragtay wuxuu jiraa ilaa 6 sano ilaa 7 sano jiraa waxa la yiraahdaa xisbigaasi waa xisbi soo kobcaya
oo xagga maaragtay samicaddiisu way wanaagsan tahay, habase ahaatee lama aqoonsano. Maalintii xisbigaasi ay rabeen inay isa sajilaan warqadda maaragtay wasaaradda arrimaha gudaha ay bixiso ee xisbinimada lagu aqoonsanayo, waxaa la yidhahdaa recipicé baa la yidhaahdaa. warqaddaasi waa loo diiday in la aqoonsado xisbigaas. wixii lagu aqoonsanayo dadku, dowladdu siday wax u macnaynaysa waxa weeyin criteriagii amba waxyaabihii lagu aqoonsan lahaa xisbi ahaan may soo buuxin baa la yidhaahdaa. sidaa daraaddeed baa loogu diiday in la aqoonsanaado xisbigaasi. xisbigan modelna waa loo diiday in la aqoonsanaado, oo dowladdu way u soo jawaabtay iyadoo ku caddaynaysa xisbigaasi inuu yahay xisbi diineed inuu yahay, oo ku xidhan maaragtay dalka masar, oo dadka akhwaan muslimiinka la yidhaahdo. sidaa daraaddeed maaragtay amba frere musulman reer jabuuti ay yidhaahdiin, ambase maaragtay qaarkood u yaqaaneen the brother muslim. markaasi waxaa kasoo rag maaragtay caqiidada la yidhaahdo akhwaan almuslimiin la yidhaahdo ee dalka masar ka jirta ayay ku xidhan yihiin baa la yidhaahdaa. sidaa daraaddeed ayaa loogu diiday in la aqoonsanaado xisbigaasi, oo xisbigaasi doorasho kama qayb gali karayo. xisbiganna waaba loo diido oo waxaa la yidhi shuruudihii lagu aqoonsanayay xisbi ahaan maynu soo buuxin. xisbiga MRD la yidhaahdo isagu waa xisbi shacbiyad ballaaran haysta, balse aqoonsigii waxaa loogala laabmay. wuxuu taageeray baa la leeyahay, sida ay dowladdu ay sheegayso, wuxuu taageeray baa la leeyahay dowladda Eritrea. markii dagaalka aan kula jirnay ayuu xisbigaasi taageeray maaragtay dalka Eritrea. sidaa daraaddeed baa aqoonsigii looga qaaday. laakiinse xisbi la yaraysan karaya maaha, waa xisbi maaragtay dadka adheranska amba dadka maaragtay memberka ka ah maaragtay reer Jabuuti tiradoodu aada u fara badan tahay. markaasi waa sidaas. marka xisbiyada ugu waaweyn ee dalka jamhuuriyadda Jabuuti waxa weeyaan waa xisbiga RPP amba RPP sida loo yaqaano, xisbiga FRUD, xisbiga EDG iyo xisbiga maaragtay MRD. markaasi afartaa xisbi unbaa ugu waaweyn. xisbiyadan kale waxa weeyaan xisbiya iska daciifa oo markay doorashadu soo dhawaato un la arko. xisbigan ARD xisbi xitaa maaragtay ofisiya ma leh, maaragtay meel lagu soo hagaago ma leh. waa xisbi maaragtay warqadii aqoonsiga uun jeebka isaga sita. xisbigan kale CDU la yidhaahdo waa xisbi cusub weeyaan, laakiinse ma haysto maaragtay shacbiyad ballaaran oo maaragtay waba cusub yahayba dee 6 sannadood buu jiraa. xisbigan qudhadiisu wuxuu jiraa maaragtay 6 ilaa 7 sannadood buu jiraa. xisbigan PND haddaba ayaan rabaa inaan isdul taago. xisbiga PND la yidhaahdo, xisbigaasi markii hore wuxuu ka tirsanaa mucaarid buu ka tirsanaa, qoladan buu ku jiray. waa ninkii hogaaminayay baa geeriyooday, wuu isaga baxay oo ninkii kale qabsaday ee xisbiga ayaa gaashaanbuurtan ku biiray la yidhaahdo UMP ayuu ku biiray. habase ahaatee aqlabiyad sidaa usii ballaaran ma leh, oo maaragtay sida ay maaragtay marka dadka Soomaaliyeed ee ku wareeray ee leh Ismaaciil Cumar Gelin baa keligii soo dhiganayo oo maaragtay doorashada. Ismaaciil Cumar keligii ma soo dhiganay 1 2 3 4 5 xisbi. 5 xisbi oo waaweyn oo isku tagtay ayaa isaga soo doorato tiri adigu waa noo tartami kartaa. xisbigiisu way soo doorteen. 4 xisbi ee kalena oo gaashaanbuur la ah oo maaragtay la ah iyaa maaragtay u codeeyay. markaasi wuxuu helayaa xisbigiisii ugu da'weyn xisbiyada Jabuuti oo 40 sannadood jira, iyo xisbigan oo 27 sannadood jira, xisbigan oo maaragtay isaguna jira 27 sannadood,
labadan xisbi ee kale meelaha dhowr iyo 10 sannadood bay jiraan. hase ahaatee xisbiyada ugu waaweyni waxa weeyaan waa PRD, waa RPP, FRUD, UDG iyo MRD. waa dee dadka shacbiyadda marka laga hadlayo, dadka shacbiyadda marka laga hadlayo afarta xisbi baa ugu waaweyn. waxyaabaha kale waxa weeyaan wax lagu dheriga marka la karinayo, cuntada la karinayo milixda lagu dardarayo weeyaan. laakiinse waa sidaas baan ummadda Soomaaliyeed aan ugu macnaynayaa. oo waxaa jirto oo maaragtay doorashada maanta nin isa soo sharaxay oo la yiraahdo Zakariye Ismaaciil Axmed la yiraahdo. Zakariye Ismaaciil Axmed dowladda Djibouti waxay kaga duwan tahay waddanada geeska Afrika amba Afrikada badankooga waxa la yiraahdo musharaxa madax bannaan yaa jirta. musharaxa madax bannaan adigoo oonan ka tirsanayn xisbiyo iyaad isa soo sharaxi kartaa, musharax madax bannaan aad noqon kartaa. laakiinse dadka qaarkood qalad bay u fahmeen musharax madax bannaan. musharax madax bannaan waxa weeyaan markaad celeber tahay, markaad qof caana tahay, qof lacag weyn haysta aad tahay, qof xisbiyadaasoo dhan la tartami kara ama khalkhal gelin kara oo u dhigmi kara. waayo ninka maalqabeennada waaweyn ee celeberka ee caanka ee la yaqaano uma baahno inay xisbiga ay galaan, xisbigaana dhowr sannadood ay ku jiraan, ay kongareega ku biiraan oo lasoo doorto. waxaasi waqti baa kaga dhacaya. iyo markaa fursad waxaa la sameeyey musharaxa madaxa bannaan. marka qof weyn oo caan oo la yaqaano oo maaragtay oo la dhigmaayo dee ragga isa soo sheego miisaankiisu culus yahay iyaa fursad la siiyey inuu musharax madax bannaan isku soo sharaxo. Zakariye Ismaaciil Axmed nin la yiraahdo, Zakariye Ismaaciil Faarax nin la yiraahdo ayaa iminka doorashadan ku jira. xisbiyadan oo dhan kama tirsano. ninkaasi waxa weeye waa baayac-mushtar weeyaan, nin la yaqaano oo dee baayac-mushtar weynna maaha, nin maaragtay dalka jamhuuriyadda Djibouti caan ka ana maaha. markaad caan aan ku leeyahay qofku waxyaabo badan baad caan ku noqon kartaa. fanaan baad ahaan kartaa, siyaasi weyn baad ahaan kartaa, abwaan baad ahaan kartaa, maalqabeen baad ahaan kartaa, aqoonyahan baad ahaan kartaa. qof dee la garanayo la ixtiraamayo maaragtay intaaba maaha. bes waxa weeye baayac-mushtarka small size maaragtay businesska ayuu ku jiraa. waxa uu soo dejiyaa alaabaha maaragtay nadaafadda guryaha lagu nadaafiyo, saabuunta iyo maaragtay shampooga iyo waxyaabaha nadaafadda ayuu soo dejiyaa oo maaragtay Yurub ka keenaan iyo carabaha ka keenaa Djibouti ku iibiyaa. intaa unbuu sameeyaa, wax kale ma sameeyo. ninkaasi waxaa la yidhi askari buu ahaan jiray. markaasi qaladka weyn ee laga fahmay musharax madax bannaan maaha. musharax madax bannaan waxaad noqon kartaa qof yacni khalkhal gelin kara oo u dhigmi karaya dadka isku tegay afarta xisbi. haddaanad ahayn maaragtay way adag tahay, aad iyo aad bay u adag tahay. marka dadka Soomaaliyeed waxaan leeyahay maanta waxaa loo codeynayaa waa 5 xisbi baa loo codeynayaa. 5 xisbi isku tagtay ayaa loo codeynayaa. 5 xisbi waxaa la isku yiraahdaa Union for the Presidential Majority Coalition. marka coalitionkaasi ayaa loo codeynayaa oo la yiraahdaa waxa weeyaan midowga aqlabiyadda madaxtooyada. saddexdan maaragtay xisbi oo iyaguna la madax baxay Union National Salvation Coalition iyagu way qaadaceen oo waxay yiraahdeen kamanu qayb galayno doorashada oo waxbay salugsan yihiin. labadan xisbina dee sharciba male, saddexdan xisbi sharci male oo maaragtay waa sida daraadeed waxay isku soo sharaxi waayeen. marka musharaxa madaxa bannaan fursad baa u furantay, laakiinse dee ninkii culusaay la raadinayay maaha. sidaasaan kusoo koobayaa. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.